كبر نكاس نيهو سدومك قاركوس شيغان meel baa lay waxba igu soo duula marka ma rabo soo arki maysid haday xitaa sidaa tiraahdo waa laga furaya ilaa in qof laba qof oo markay is arkaan qof wax ku duulaayo ma wada noolaan karaan soo arki maysid ama sida la yiraahdo maanta luqada mucaasirka ninka waan sanifay ama gabadha waan sanifay ma rabo inay meel la degto ma rabo inay meel la joogo ma rabo waan sanifay marka hadii la sanifo de nolol meesha ma taalo waa in lagu kala tagay marka sanifaadu ma taqaaniin يعني معناheedu waxa weey gabadha ama mar rabo oo yani aragtideeda iyo meel fariisigeeda iyo hadalkeeda midna mar rabo iyadna waxa laga yaabaa inay tiraahdo ninka ama mar rabo aragiisa iyo hadalkiisa iyo midna mar rabo labada qof nolol ma wada wadaagi karaan waa la isku dayay in la daaweeyo laakiin hadii ay socon weydo gabadhu xaq bay u leedahay inay marka furiin dalbato ninkaana waa in laga furaa waayahay marka masalada waa in la ogaado waayahay وحيابا أخطاء طلاق لغا غلو waxa kamid ah طلب الأب من ابنه الطلاق aabuhu inuu inankiisi ka dalbo inuu xaaska furo ama hooyadu inay tiraahdo naagtan ma rabi gabadhaadan iska fur inay tiraahdo soo arki maysid maxay harin marka waa dhamaad xaalada sheekana waqtigii ma dhamayst waqtigii maxay harin waa insha Allah waa iska soo وايه waxa kamid marka akhtaada iyo gafafka la kala galo waxa kamid ah aabuhu inuu ma garanaysa uu ku yiraahdo inankii gabadha fur inankiina uu iska furo gabadha uu yiraahdo aabahay baa isagu mas'ala qaldan weey aabahay iska fur kuma furi kartid hooyada haday ku timaado xitaa iska fur gabadha kugu tiraahdo ma furi kartid aabuhu waa inuu bayaamiyo sabab sharci oo lagu furo gabadha hooyadu waa inay bayaamiso sabab sharci waa inay bayaamiso arki maysid laakiin aabayaasha qaar kood ba waxa laga yaabaa inay iska hinaasa badan yihiin inuu arko ninkii inuu jecel yahay gabadhii aad inuu jecel yahay jacayl badan hadii jeer isdaba socdaan maxaa aad ma sha Allah Allah nicmo fara badan baa uu siiyay odayga waxa laga yaabaa intuu hinaaso inuu naagtan iska fur maxaa dhacay wayna dhacday maxaa isla daba socotiin hadii jeer maxay iskin daba dhigay in kaar qabtadana way ku waashay way ku sixirtay sixir bay u dhigtay ninkani ma fayooba oo muxuuna u fayoobeen naagtana wax u dhigtaa leeyahay waxba u samaysay waxana adila laga dhigay hada jeer waa daba socdaa waa jecel yahay waa u shaqeeyaa qaar ba waxay leeyihiin naagtani ninka inay sixirtay waxa daliil u ah madbuxu gala madbax la gala maceeb baayo ikhwa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo dadka ugu khayr badnaaba wax karin jiray khadamaadkana sameeyay marka loo baahdo soo arki maysid marka aabuhu haduu masalada la yimaado laga aqbali maayo masaa'ilkaasi waa inuu sabab sharci cadeeyo oo sabab la yimaado soo arki maysid sidaas oo kale hooyadii hadii ay waliba hooyadii masaa'ilkaasi aabayaasha way ku yar yihiin hooyooyinka aad ugu badan yihiin gabadhii intay sidaa u aragto waxa laga yaabaa inay u bagi weydo gabadhii waxa laga yaabaa ninkiina uu wanaagsan tahay iyadana ay u wanaagsan tahay laakiin iyadii baa iska saniftay ala sabiil misaal oo kale sida culimadu ay yiraahdeen dumarka qaar kood oo kale waxaad moodaa hooyooyinka qaar kood oo kale waxay yiraahdeen culimada maqaalka laga soo raray in ay yihiin dumarka marka la isla qabo aad buu hinaasa badan yihiin aad buu isku hinaasaan oo hinaaso badan baa jira soo arki maysid waxaan u maleynayaa hawlaha dumarka aad u yaqaana in laga sheekeeyo dumarku ma jecla marka inta uma dhaafayo anaguna waayahay marka hooyooyinka qaar kood waxa laga yaabaa hinaasahoodu inuu gaaro sidii gabadh la qabo oo kale inay gabadhii wiilkeedu uu qabayna aad ugu hinaasto dabadeed marka qaar kood ay tiraahdo naagtan iska fur hadayna sabab sharciye keenin furi maayo abadinu furmaa yaani waxa dhacday waxyaabaha qaar kood ee aan arkay nin gabadhii laga yaabo inuu ku furayo nin baa waxa uu gabadhiisa ku furayay oo runtii aan arkay maxaad ku furaysaa gabadhan wuxuu waxaan gabadhan ku furayaa hooyaday markay guriga soo gasho madaxa kama dhunkato subhanallah war gabadhan hadayna hooyada madaxa ka dhunkan ka waran adii hooyada iska dhaaf hooyadii dhashay hadayna madaxa ka dhunkanin mataada ka dhunkanaysaa waxna waa dhaqan soo arki maysid waxa laga yaabaa gabadhan waligeed wax ayna u aqoonin laakiin ninkan family-giisu inuu yaqaan baa laga yaabaa madaxa la iska dhunkan la iska shumiyo laakiin gabadhan ay waligeed waxa arkin soo arki maysid marka hadii hooyadii tiraahdo gabadha fur maxaa yeelay madaxayga ma dhunkato la yajuus sabab sharci ah oo lagu furo ma noqonayso waayahay laakiin hadii uu la yimaado sabab sharci ah oo ala sabiil misaal ay kamid tahay naagtii inay tahay gabadh xun ninkii salaadaha jamaacada oo dhan uma ogolay inuu masaajidka yimaado masaajidii bay ka gooysay diin lama rabto khayr lama rabto wanaag lama rabto odaygii markuu arintii daraaseeyay wuxuu arkay inankiisii sii socda oo sii tagaya markaas waxa uu tan way ku halaagaysaa diintii ka gooysay diinna ma rabto gabadhan iska fur waa sabab sharci ah
oo diineed waa ala sabiil mithaal masaladaas hadduu sabab sharciya la yimaado oo dadka culimadii markay fiiriyaan ay noqoto sabab sharciya gabadhiina ay markaa ka tanaasuli weydo oo masaladii ka noqon weydo soo arki maysid waxa markaa meesha imanaya hadda inuu ma garanaysa gabadha inuu markaa furo ayaa meesha imanaya soo arki maysid waayahay masaladan lafteeda waxa la weydiiyey oo masaladaas su'aasha la weydiiyey imaam ahmed ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ayaa waxa la weydiiyey can hadhihi almas'ala bi'ayniha lafteeda la weydiiyey jaa rajulun ninba u yimiday markaas waxa uu ku yiri inna abi ya'muruni ba uu yiri aabahay wuxuu amrayaa ba uu yiri inaan furo xaaskaygi inaan furo faqala al-imam ahmed markaa waxa uu yiri ha furin ba uu yiri maxaad u furaysaa markaas waxa ninkii uu yiri alaysa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad amara ibn umar rasuulku sallallahu alayhi wasallam ibn umar sawki amray an yutalliqa zawjatahu حينما أمره عمر مركي ابن عمر وكيري فر سوكي رسولك وانا فرت عمر أنا أطيع ذا مركاسا واحد إمام أحمد وجوابي أو يري هل أبوك مثل عمر باويلي أبها ما عمر وكلا باويلي أبها ما عمر وكلا عمر وحو أفر لها سيدا مسألة دراسية وحو أركي قبردني وقبينا كيس عبد الله بن عمر إن يتهي قبر ما قرنيسا آنا يعني دباتو إني جرتو شرعي خلافسا wiilkiisa inay dhibaato u keentay laga yaabo xagga diinta iyo shariicada marka la fiiriyo sida aawadeed ayaa uu ku yiri fur sidii nabi ilaahi ibraahim oo kale markuu ismaaciil u yimiday waxa uu yiri xaaskiisii la kulmay waxbay bilowday ashkatay iyo qaylay iyo dhibaatay bilowday fariin buu fura waxa uu ku yiri markuu ninkaagu yimaado waxaad ku tiraahdaa ghayr atabata baytika atabada gurigaaga iska bedel ninkii ismaaciil markuu yimid gabadhii ay u warantay xaaskiisa ahayd nabi ilaahi ismaaciil waxuu nin weyn oo da'aba yimiday oo sidaas markaa fariintana waa uu ka dhiibay oo fariintu maxay tahay waan u cawday oo sidaas aan ku dhahay oo fariintan catabada gurigaaga iska bedel jaranjarta gurigaaga waanad bedeshaa markaas wuxuu daaka abi kaasi aabahay buu ahaa wuxuuna amray inaan ku furo waana ku furay halkii buu ku furay soo arki maysid laana qof ashkata badan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaagiisa iyo qadarkiisa aan raali ku ahayn soo arki maysid waxa laga yaabaa qofkii inay halaagto waa ina gabadhu tahay gabadh ku qanacsan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyey qadarka iyo qadaagana ku qanacsan arrimaheedana ilaahay subhanahu wa ta'ala u bandhigata laakiin bil aadankan u bandhiganin bil aadanka waxba ku qaban maayaan soo arki maysid ayuha al-ikhwa hadhihi waxay kamid tahay waxyaabaha marka asbaabta talaaqa iyo akhdaa talaaqa ayaa ma garanaysaa ay kamid tahay jazakumullahu khayr mawduuc insha Allah ta'ala intaas ayaa uu ku dhan yahay waan maasantiin insha Allah